بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي دمان أصحابتي كهران جنال كيني مولي مان جنال وأد uga barteen cashiro ku saabsan Photoshop iyo video editing-ka. Waxaa maanta halkaa idinkugu soo gudbin doonaa sida ugu fudud aad ku samaysan lahayn Paintbrush effect adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop. Waxaan ku tusi doonaa qaabka ugu fudud aad ku samaysan lahayd daawasho wacan. Uguleen waxaan soo furnaynaa barnaamijkeena Photoshop. waxaan furnaynaa file cusub. waxaan taabanaynaa Control N oo ah new file. magac u baxso. cabirka waxaad ka dhiganaysaa 1920 resolution 300 and then click OK. Okay, markuu inoo soo furmo background-keena waxaan u baahannahay inaan ka qaadno kalarka cadaanka oo aan ka dhigno kalar wax yar cadaan ka duwan oo indhaha dhibeynin. waxaan tagaynaa right click ayaa leenahay Line option gradient ayaa ka dooranayna. gradient markaa ka doorano automatically isaga ayaa saarayo opacity-ga ayaa yareynaynaa si oo wax yar madowga ugu yaraado. stepka xiga ayaa wuxuu yahay waxaan soo furnaynaa sawirkeeni Control O. sawir ayaa already diyaar inoo ahay waa midkan. Control A Control C paste inoogu dheh. sameynaynaa sawirka cabirkiisa ayaan saxaynaa Control T ayaa leenahay sida kula qurxan ama cabirka aad rabtid ka dhigo. positionka rabtid ku aadi intaan ayaa sameeyay. sameynaynaa sawirka ayaa waxaa leenahay convert into smart object si aysan tayadiisa nooga lumin. kadib waxaa sameynaynaa mask ayaa u furnaysaa. markaa mask samaysatid kalarada halkan waxaad ka dhiganaysaa cadaan iyo madow. cadaanka waa inuu soo kormaraa. kabacdi halkan layerka kore ee sawirka image-keena ah ayaa waxaad ku leedahay Control I. wuu isbedelay cadaan ayuu noqday waxbaha welwelin. waxaa u baahannahay marka hadda inaan effectiga brushka marino. waxaan dooranaynaa brush aan soo dejistay ayaa jiraanay kuwaas ayaa isticmaalayaa. hadba adig kuwii kuugu jira isticmaal. ujeedaa sawirkii wuu soo baxayaa. brush kala duwan isticmaal si oo sawirka qurux u yeesho una noqdo mid qurux badan. markaad dhammayso brushka waxaan sameynaynaa wax yar oo waxaa u baahannahay inaan ku darno color. waxaad tagaysaa calaamadan yar waxaa ka dooranaysaa gradient map. sawirkii black and white ayuu isku bedelayaa. black and white markuu isku bedelo halkan ayaad dooranaysaa kalarka ayaa ka dhiganaya. kalarka markaa ka dhigno and then click OK ayaan leenahay. OK markaa dhahno waxaan sameynaynaa sawirka sidaa u jeedid kalarkii background macal sawirka dhan ayuu daboolay. si uu sawirka kaliya u daboolo hadda calaamadan yar oo geeska jirto ayaa taabanaynaa. sawirka ayuu ku koobnaanayaa kalarka effectiga ma saameynayo inta kale. kalarka wuu buuxiyey. opacity-ga ayaa yareynaynaa kalarka si uu yar qurux u noqdo. dib ku noqonaynaa gradient map again kalarkii
okay sidan kadab okay inta ugu badneed ee sawirkeena waa dhameynay waxa u baahanahay inaan ku darno text calaamadan tida ayaa soo dooraneynaa textiga rabtid qoro ama qoraalka aad doonaysid su'aal anaga waan qoranay farti inoo bedel sawirkeeni sidaas ayaanu ku dhameynay oo aan u yeelnay effectiga brush effect waxaan rajeynayaa inaa waxuun aad ka fahantay haddii aad ka heshay videoga fadlan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada waad ku mahadsantahay la socodka